aad kaga go'ayseen madasha samata bixinta mise madasha idin la ogeedo idin dirsatay inaad wada xajoodka gashaan maya madashuna mana dirsan mana uga go'een annagoo wada jiraan madaxweynaha la galnay wada hadal iyo wasiiradiisa waxaan ka wada hadalnay dastuurka iyo qodobada ay tahay in wax laga bedelo raggeena annaga qaybteenaan waxaa noo muuqatay ragga kale qaar ka mid ah waxaa noo muuqatay nidaamka baarlamentariyanka ah ee Soomaaliya ee leedahay inuu macnaha badbaadiyaya ilaahay wax badbaadiya laakiin hanaanka dastuuriga wax lagu badbaadanayo waxay tahay in madaxweynaha baarlamaanka uu ka soo dhaxbaxo oo aan la dhihin tuul heblaayo codadka lagu tiriyay oo askartu ay taagneed oo haddii sanaadiiqda la isku gadiyay madaxweynaha meeshaas lagu soo doortay ee la yiraahdo hebel waa codeeyay oo madaxweynaha uu noqdo qof aan la isku haysan in uu madaxweynaha yahay oo codadka ugu badnaa oo helay oo cod shaki gali karta aysan jirin qodobka labaad oo aan intaan meesha joogno aan isla meel dhignay oo madaxweynuhu naga ogolaaday annagoo dhan oo dhammaystiran oo Sheekh Shariif madaxweynaha horna gudoominay wuxuu ahaa in ra'iisul wasaaraha madaxweynaha xilka qaada la yiri ra'iisul wasaaraha Twitter oo soo dhawaan habeenkii oo xalayto markaas yahanis ra'iisul wasaare ahayd laakiin saako markii waaga uu ku bariyo ama hadda markii laga kiciyo Twitterkii baa laga qaaday madaxweynaha ka qaada aan la dhihin ee la yiraahdo awoodaas waxaa lagu wareejiyay baarlamaanka Soomaaliya inuu asagu noqdo jihada qiimeynayso shaqada ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada oo kalsoonida ka laaban karaan una deyn karaan tan saddexaad waxay ahayd laba xisbi oo dadku ay uga shakisaan hal xisbi xoog iyo xisbi oo malxiis u noqdo in laga daayo oo xisbiyadu ay percentage ku soo galaan meeshaas markaan soo gaar annagu waxaan nidhi intaan kaafi waayo waxa kale oo hadal lagu dhamaystiri karaa laakiin intaan waa tiirarkii dowladnimada gaar ahaan nidaamka baarlamentariyanka isku haynta wada haysashada xukunka nuxurku ah madaxweyne aan banaan ka soo baxayno baarlamaanku keenay ra'iisul wasaare haddii la magacaabo ka bacdi madaxweynuhu haday wax isku qabtaan inay isqanciyaan ama baarlamaanku isla dacwadaan ah oo miisaankii qabaa'ilka iyo deegaanada ilaalinaya annaga intaan waa wax asaasi baan yiri aan ku salayno wixii kale doorashooyinka markaas waxa harsanaan doorashooyinka mudanayaasha baarlamaanka soo galay isay ku soo galayeen oo aad loo kala durugsanaa wada hadal kale aan ka dhigno maya waxa dhan waa isku haynaynaa koraan u haynaynaa ninkan ka yeelimayno ilaa waxyaabaha kale oo ka ogolaado gaar ahaan cadaasay ku noqonaysaa adduunyada ku qabsanayso nimaan dadkiisa heshiisiin karin nimaan dadkiisa la heshiin karin laga dhigaa saasay ceebtaas ku imaan annaga raggeen afarta marnaba ma rabin madaxweyne Soomaaliya aan ceebino marka inta kala lahayd ninkan aan falxumayno ninkan aan ku dhigno hal lagu haayo har rafaadsanaado mashaakilka saas ahaada waxaan ku yiraahdaa ilaa waxa dhan oo ka wada ogolaanayo aan saas ugu dhaganaan annagana waxaan nidhi wada hadal sideedaba qaacida ilaa khudwa daaliba leeyahay wada hadal qof la gashid waxa dhan isku jumlaysan baahnid waxa u baahan tahay qodob ka hadlaysan qodobkaas ka hadlaysan haddii uu matala boqolkiiba hal qodobkaas oo kale lagu sii oo aad heshay waa la qaata 99 kale laga hadla annaga waxaan la boqolkiiba 75 waxa u socon inaan qaadan qodobada kale oo doorashada iyo nidaamkaas la xiriiran la iska soo noqdo ama wada hadalkeeda la sii wado marna meel maraad dawladdu waxay soo istaagtay war annaga qof iyo cod aragnaa doorashada sidaan u aragnaa doorashada mudanayaasha baarlamaanka aad rabtiin idinka nimayow soo gudbiyo oo iyadoo qoran keena maadaama doorashooyinka 22ka aysan aqbali karin dadka murashaxiinta ah say u dhacaan oo dadka qaar ay soo qornaayeen iyo si loo sameeyay maadaama labada maamulo maqneed iyo dadka u guuxay si ay rabaan aysan aqbali karin doorashooyin nidaamkaas ka gadisa annaga dhaxdeena madasha samata bixintu waxa adkeed welina adag in la keeno nidaam doorasho oo maamul goboleedyada iyo murashaxiintu ay isku waafaqsan yihiin oo ka gadisan kii 22 murashaxiintu ma aqbali karaan siyaasiyiintu ma aqbali karaan midka ka gadisan maamul goboleedyada gaar ahaan labada hadda ka maqnayd meesha ma aqbali karaan taasoon dhammaanayn waxaa yidhi qodobada kale aan ku dhegno oo maxaan ku dhegaynaa wixii intaas ka soo hara ninkaan dastuurka noqon dhahna kansaan aan yeel war dastuurka 12 nuxurkiisa meeshaa lagu celiyay adiga haddii aad fursadii aad madaxweynenimada ku raadinaysay tii 12 aysan ka gadisnayn
oo baarlamaan lasoo xulay oo baarlamaan yimid ay tahay meesha ay tahay waxa kaloo adiga oo culays ku amxiya waxa kaloo waxay kaliin oo aad loogu dhajiyo anagu hortaas aan ku kaleexan walil amaana wa taariikh baasha aan wax soo gaarsiinay iyo si ay wax ku soo gaareen Soomaaliya caqabad culus ayay ka gudbisay haddii aanay arrintii afartiina wadahadalka aad sida gaarka u gasheen aanu siyaasadaysnayn oo aad xaldoonahaydeen oo islahaydeen soo dhaweeya xalka marka aad madaxweynaha la hadasheen oo inta aad ka keenteen ayir madashiin intaad ku soo noqotaan maxaad u oran weyseen intaan aanu ka keennay hore inoo wada maxay ku dhacday jawaab inaan bixiyo aan rabina ii jiidaysaa hadda ka hor waa la weydiiyey laakiin waxaan rabaa inaan ku idhaahdo annagoo dhan oo wada fadhino ayaa intaan madaxweynaha kula heshiina oo madaxweynuhu ogolaaday laakiin annagoo wada fadhino waa nagu soo dhici weyse inaan intaas u ogolaaday madaxweynaha aan qaadano markaan isla soo noqono annagoo wada fadhi hadda wax la qariyo ma ahayna oo dowladda ma qarsan waa ka laabanaynaa nidaamkii madaxweynaha dadweynaha toosoo doona koow baarlamaanka wasaarada saa sheegteen baarlamaanka kalsoonidiisa ku jooga kuna baxa axsaabta waxaan ka dhigaynaa percentage laga dhigaa oo boqolkiiba 10 qofka waa imaan kariya hadday rabaan 10 xisbi ha noqdaan 5 xisbi ha noqdaan 6 xisbi ha noqdaan waxaan kale aan ka wada hadalno may intaan idin kuma filno markaan soo laabana waxaan saddexdan anaga waa nagu caadi noogu asaasiyata dowladnimadii badbaado u tahay marka idinku waxaad qorsheynaysaa inta markaad heshaan in wada hadalku sii socdo mise intaasiba inay ku filan tahay in doorasho lagu aado maya intaan markay dhamaato in waxa fiir waxyaabihii la diidanaa waxaa kamid ah oo dowladda lagu diidanaa gobolka banaadir doorashada laga qabanayo annaga iyo madasha inteeda kale oo kala aragti gudisaan waxay yiraahdeen lama yeeli karo doorashada gobolka banaadir maxaa dhacay way boobayaan okay ikaadi okay waa fiicanta doorashooyin qalqaloocan laga baqaso ma waxaan waa yahay hadda haddii degmada hodan gudoomiyeed waxaa soo magacaabo duqa magaalada soo magacaabo duqa magaaladana madaxweynaha soo magacaabo in intaasoo qof intay soo baxdo oo doorasho ay dhacdo oo la tartamo oo saas uu ku soo baxo oo doorashadaas ay daldaloola lahaato oo dad kaloo xataa aysan iyaga soo magacaabin ay degmooyinka qaar ku soo baxaan iyo hal nina inuu inta warqad qaad qarar siiyo ya teeba run haddii ay wixii boobaan iyagii boog madow ku noqonaysa haddii wax ay furaan ya waxba isma dhaamaan waa is dhaamaan annaga saa u aragna is dhaamaan taas qodob kale waxay ahayd haddii doorashada aan diidna annaga hadda annagoo wada jirna aan idhaahdo doorashadaas waxba kama jiraan mana yeelayno oo doorashada ay dhacayso doorashada maxsan ka hor istaagnaa ma la isdilaa ma doorasho waxbaa la dooran aan ka diranaa ma diidnaa ma dadkaan kicinaa aaliyaadna kama muuqan annaga marka meeshaan ka fiirinay raggeenii oo dowladda heshiiska la gala 25 bishii Agost waxay ahayd kan iyagana tijaabay u tahay doorasho qalloocatay oo qalqalloocan berrito waa la toosin karaa laakiin marba haddaysan doorasho jirin oo madaxweynuhuna soo magacaabo gudoomiyaha ya mogolaha wasiirada soo warsiya habtoosayta gudoomiyuhuna uu gudoomiyaha degmada magacaabo asaguna laamaha uu magacaabo oo doorasho waxa la yiraahdo aysan jirin ama ka runta dhalinyarada inay abaabul ku bartaan axsaabtu ay sabaabulaan arkaan iyadoo laga shakisan yahay wiilku uu aamino inuu ayaan dhawaad abaabulka uu sameeyay darteed degmada lagu keenay waaxda lagu keenay anaga meeshaas ka fiir doorashadii aad tiri abaabulka ragga kalena ay idinku diideen in doorasho halkan laga sameeyo way boobayaan 25 December soo halkan doorasho kama dhicin wax dhowr bilood baa laga joogaa hadda maxaa ka hirgalay dhalinyaradii golaha deegaanka loo